Bismillah, salaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal kale oo cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa shanta faa'iido ee ugu waaweyn ee sanjabiilka uu leeyahay. Waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinkaas annaga oo mid mid u soo qaadan doono. Waxaan kaloo ka hadli doonaa yaa isticmaali kara, xad intee ah laga isticmaali karaa, qaab noocee ah loo isticmaali karaa, yaan isticmaali karin, iyo ugu dambeys cilmi baarisyadu maxay ka yiraahdeen faa'iidooyinka uu sanjabiilka inoo leeyahay. Sanjabiilku waa mid ka mid ah dhirta sida maalinlaha ah dadkeenu ay u isticmaalaan. Dhinaca kaleetana waa foolaadka dhirta loo adeegsado daawo dhareedka. Haddaba aan soo qaadana faa'iidada ugu horeyso ee uu inoo leeyahay sanjabiilka. Sanjabiilka waa faa'iidada koowaade waxa uu kor u qaadaa tayada dheefshiidka. Sanjabiilku waxa uu kaalin lixaad la ka qaataa dheefshiiditaanka cunnada. Hanaankeena dheefshiidka oo ka kooban xubno fara badan oo ay ka mid yihiin caloosha, mindhicirada, beerka, ganaca iyo xubno kaleeto waxa ay u baahan yihiin si aan uga faa'iideysano cunnada aan cunayno in ay marayaan processyo cunnada aan qaadan. Processyadaas si loo dedejiyo isla mar ahaantaana loo dheefshiido cuntadaas loogana faa'iideysto oo nafaqadaas loo nuugo ayuu saacidaa oo u sahlaa isaga oo dedejinayo waxa loo yaqaano gastric emptying time-ka ama in caloosheenu cuntada gashay ay si hore ama dhaqso leh uga baxdo. Waa faa'iidada labaad ee sanjabiilku waxa uu yareeyaa xanuunka, khaasatan xanuunada aan ka dareeno murqaha kala goysyada iyo xanuunada la midka ah. Waa faa'iidada saddexaad ee sanjabiilku waxa uu kor u qaadaa hanaanka difaaca. Hanaanka difaaca oo ah hanaanka ilaaliya jirkeena isla mar ahaantaana ka hortaagan in caabuqyada iyo waxyaalaha kaleeta ee jeermisyada ee jirkeena ay soo galaan. Waxa uu u baahan yahay waxyaalo ku sameeya boostin. Sanjabiilka ama ginger-ka waxa uu qayb ka qaataa taageeradaas isla mar ahaantaana wuxuu xoojiyaa difaaca jirka aadanaha. Waa faa'iidada saddexaad ee sanjabiilku waxa uu yareeyaa caabuqa. Sanjabiilku waxa uu ka kooban yahay maado muhiim ah oo loo yaqaano gingerol. Maadadaas gingerolka la dhaho oo ka mid ah componentska ama waxyaalaha uu ka kooban yahay sanjabiilku waxa ay aad muhiim ugu tahay in ay yareyso caabuqa maadaama ay tahay anti-inflammatory ama waxyaalaha ka hortago caabuqa. Waa faa'iidada shanaad ee sanjabiilku waa matag joojiye. Khaasatan marka ay timaado haweenka uurka leh ee ku jira bilaha ugu horeeya uurkooda ee Soomaalida u taqaano walaca. Sanjabiilku waxa uu ka caawin karaa inuu ka yareeyo matagga. Faa'iidooyin intaas ka badan ayuu leeyahay sanjabiilka isaga oo ka hortaga waxyaalo fara badan ay ka mid yihiin xanuunada madaxa ku dhaca khaasatan madax xanuunka la dhaho migraine-ka. Faa'iidooyin kale intaas ka badan uu leeyahay. Haddaba waxaan isdul taagaynaa xad intee leeg ayaa laga isticmaalaa, qaab noocaas ayaa loo isticmaalaa. Haddaba qaabka loo isticmaalayo waxay ku xiran tahay qaabka uu yahay ama nooca uu diyaarsan yahay. Wuxuu u jiri karaa qaab ah isaga oo budo ah ama isaga oo xidid oo qoyan. Marka uu budada yahay waxaa la isticmaali karaa maalintii qaado ama qaado haafkeed. Marka uu yahay xididka qoyanna waxaa la adeegsan karaa jab ama laba jab oo u dhigmaya 2 ilaa 4 gram. Waxaan u gudbaynaa qodobka ah yaan isticmaali karin. Sanjabiilka waxaan isticmaali karin dad ay ka mid yihiin dad kale boog calooleedka maadaama uu yahay wax spicy oo kulul waxa uu keeni karaa xanuun mana u fiicno. Sidoo kale waxaan isticmaali karin dadka qaato daawooyinka loo yaqaano dhiig khafiifiyeyaasha ama blood thinners oo ah dadka qabaan jirowga qaadanayaan daawooyin keenayaan dhiigooda la furfuro. Sidoo kale waxaan isticmaali karin dadka dhiigoodu waxaan jirta ku yartahay. Haddaba maxay cilmi baarisyadu ka yiraahdeen? Cilmi baarisyadu waxa ay xoojiyeen isla mar ahaantaana ay hoosta ka xariiqeen faa'iidooyinka dhowrka ah ee aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo fara badan. Iyadoo cilmi baarisyadu ay xuseen in sanjabiishu ay tahay mid aan looga maarmeynin caafimaadka iyo badqabka jirka isla mar ahaantaana xanaanada jirka uu ka kooban yahay si weyn u taageero wax badanna ku beeriyo. Muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobaynaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.